ورحمة الله وبركاته الرحمن صاحب الصوماليات ملك الجوكتان يسكستوا على الضوء ولسان حلو وناكسر وركاسي ورلا لي أبو ميدين ليحي أو ما أقول التعجبتين وعلى يري إن بدل وايد كوجو مهما هاي عرورته وح كتشتشله ويلك أي كتشيل ميا حدي أحمد معلم فقه سيداسي ما حسوسة هذا دكتور حاشا محمد يري أرجع حسدها استديوان جلسوا ومواطنين صوماليين وإن استديوان جليان إنه يري ميلان حسوسة حداد مودان إن بين شيء أو ور أنا وأن سؤال اللي في وياهي بل حسنا إلى الدعوة وحال الشيء أو هذا أمني وربحنا يوسوسيا إن خوارجتي الشباب أي ضد أي صدرنا إلى أرض قرار كسوقات قاتان شباب ودن وحور بمرض دونا حجابك دونا يكوفيد دونا سوقات كارك حقاته از ديوان وياي waxay la tahay inaad daawateen xasan sheekh maxamuud oo amar ku bixinaya in ay isdiiwaan galiyaan kooxaha khawaarijta ee al-shabaab wuxuu u aqoonsaday muuqaalkan uu dheeraay muwaadiniin Soomaaliyeed oo xaq u leh in ay isdiiwaan galiyaan dabcan muwaadiniin Soomaaliyeed way yihiin oo wali muwaadinimadii lagama qaadin hase yeeshee dadka inay xukumaan xisbi noqdaan al-shabaab xaq uma laha sababtoo ah waraabe ari lama raacin karo dadka ay dilayeen qarxinayeen xuquuqdoodii u diideen dadku soo xaq ma laha inay amni iyo maxuu ahaaytay barwaaqo ku noolaada amniga bay u diideen nolol bay u diideen in la yiraahdo isoo diiwaan galiya xisbi furta xaq ma laha labada oday warkooda markii la isu geeyo waxa anaga noo soo baxaya in xisbiyada daba socda xasan sheekh maxamuud maxuu ahaaytay markasta sheego inay doorashada la galayaan ama la galeen in urur kamida al-shabaab uu ku jiro xisbi al-shabaab inuu ku jiro ayaa noo soo baxaysa ahmed macalin fiqh wuxuu sheegay in dalka isku haystaan laba xisbi magacu waa xisbi ogaadaya JSB iyo xisbiga al-shabaab hadda waxa ay magac xisbiga al-shabaab noo sheego waaya inta marka lagu daro qoladan la yiraahdo ICG International Crisis Group maaladu bixin ay soo saareen wax weyn baa ku baxay qoladaas maaladu waxay malab iyo cusbur iyo cilaan ba mariyeen nimanka la yiraahdo argixisada waxay yiraahdeen nimankii way wanaagsanaadeen dadka way nabadgeliyeen amniga muqdisho ka jira waxa weeye yani kalsooni ay shacabka siiyeen kooxaha khawaarijta waxay sheegaan baayo bakool dhulal ay xisaar ku hayeen ama go'doomin inay ka qaadeen oo la macaamileen ganacsatadii kadib markii la isku fahmay dadka halkii ay cunaqabatayn lahaayeen inay cashuur qaataan nima wanaagsan weeyeen maanta waxay dhaheen hilbihii ceerinka ay cuni jireen way iska dhaafeen waa la aamini karaa dadkii u soo dhawaadeen way tanaasuleen war dheer bay qoreen marka fiqi warkiisa marka la eego kooxdaas maxuu ahaaytay reer galbeedku wato ee la yiraahdo International Crisis Group ka warkooda kii xasan sheekh marka la isku daro wax weyn baa socda meesha waxaan la doonayaa kooxaha khawaarijta dalkan in lagu wareejiyo xasan wuxuu doonayaa in xisbi lama gartaan ah oo aan hadda la aqoon uu biriira uu ila tartamay xisbigaasna waxa weeye xisbi al-shabaab hadhowna yira xisbigaas ay guuleysto dalka sidaas lagu wareejiyo hadda xasanka sidaas u hadlaya ee ogolaaday in maxuu ahaaytay isdiiwaan galiyaan ee wasiirkiisa gaashaan dhigu leeyahay laba xisbi dalka isku haysto midna yahay al-shabaab midna yahay annaga ayaa maalin dhawey يعني wuxuu lahaa dib xoreyntii baan galeynaa madaxweynaha ku dhawaaq muxuu ahaaytay waa dalka muxuu ahaaytay dib looga xoreynaya kooxaha khawaarijta waxaasay ku hadlayeen war dagaal al-shabaab oo socota oo ma rabtaan oo xasanow dhulalka la haysto inaad xoreyso ma rabtid sababtoo ah maalin dhawey markaad weerartay dhaqankii mursaday waraysi aad ka dib bixisay saad ugeedeed hadliis dhulalka la haysto waxa kamid ah bariga galgudud حسن شيخ وحو أخذ سيدي عيالك تيك-توك الرضا وحو لنمكا معارضك إلى الدريرية وعاك ماذا قار قولكو ذي حريسان واي وأفك إيكو هالليين عيال تيك-توكر كأبقالك كو مرصدها إيكو أبقالكو مركا تيك-توك يسوقي مادين أي وحي لان عيالك أبقالكو مرصدها قولكو ينسوا حريستا يضو هالمانسان
dhulkii ugu weynaa iyagaba in laga haysto markaasay ku weynana waxay dhahaan war aadan yabaan iyo rundurgood iyo hilolagaab iyo califool dheer iyo heblaayo hebelka iyo afar tuule yaa leh soo dadku waa kama soo cararin markaasay kala cararaan wuxuu hilmaamay xasan maxamed cali marka uu lahaa niman aan dhulkooda xoreysan karin baa ku jira isagoo xasan cali khayre ku dhaga hadlaya wuxuu hilmaamay 220 wiil oo 39 ah inuu uga cararay meesha la yiraahdo aadan yabaan 3,000 oo wiil oo Afghanistan ay futada jeediyeen weliba uu abaalmarin uga dhigay darajooyin iyo inuu dalacsiyo kuwa cararay maalin dhaweyd 3 sarkaal oo kuwa shahiiday ah ayuu dalacsiiyay ina ciise tuuriyana kuma darin ogaada codada iyo xanuunka ninkaasi uu qabo dabcan nin dhintay dalacsiintiisu waa dhiirigelinta ninka nool ee ninkii tagay wax gaaraya ma jiraan marka xataa ninkii geesiga ahaa ee 220 wiil oo uu watay isagoo meesha ku shahiideen xasan inuu isagoo meeyda dalacsiyo guul kaasa markuu wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa inaan maxuu ahay dib u xoreeyo dalka waa maaweelo iyo hadba derbi madax ku qaad uu doonayo malaha inuu waqtiga ku sii dheeraysto waxaan leeyahay Soomaalidu laba goor ka fikirto aad uga fiirsato waxa weeye nimankani waa koox waxa weeye argagixiso meesha waxa jooga waa argagixiso iyaga iyo gafurduubtuna xabad isma dhaaban hadii aysan sidaas ahayn oo fiqi warbadiyo arrinkan u geysay hadda waxa la jiray nin war badan hooyadeen waxay ka soo yeertay xasan waxaana tusoo saaka raacday oo yiraahdo ugu matashid shaqada kumalihi al-shabaab xisbi ma hadho hadduu saddeena fiqishiis si shaqaysto hawsha socota waa dalka in lagu wareejiyo khawaarijta ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyad waxay ka saaran tahay kuwii dilay ee barakiciyay ee qaxiyay ee baadayay inaan dawlad looga dhigin oo iska diido dulmiga ay maleegayaan kooxda xasan maxamed cali barnaamijkiisa ku soo gudbinaya hada wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh